murugo iyo xanuun ayay ibadeen kuwii adduunsan jiray waa dhacdo la yaab ama kaag argagax iyo fajac ugu abuuri doonto waxa ayna ku dhacday qoys madow ah uu ka dhashay wiil la yiraahdo Georgia aynu idin bilaabo sheekada magaciisu waa Georgia waxa uu asagii hooyadii aabihii ay ka wada shaqayn jireen beer uu lahaa nin caddaan ah ee u dhashay dalka Mareykanka waxa ay qaban jireen shaqooyin aad u culus maalin kasta ayagoo ka mid ahaa dadkii madoowaa ee Mareykanka loo keenay in la adoonsado muddo markii ay hawsha culus ku jireen ayaa waxa dhacday in wiilkii Georgia isweydiiyo bal shaqadan dhibka badan sidee ayaad uga bixi kartaan waxa uu soo baxday in uu u baahan yahay in uu wax barto maskaxdiisana shiilo dabadeedna waxa uu ku dhaqaaqay arintaas maalin maalmaha ka mid ah ayuu waxa uu soo galay iskuul ay ku jiraan arday yaryar oo caddaan ah dabadeedna maxaa dhacay in caruurtii ay ku argagaxaan muuqaalkiisii waa ayna kala carareen ayagoo ku qeylinayo daanyeer maamulkii iyo macallimiintii iskuulkii ay ku jireen ayaa qeyladii ku soo baxay waxa ayna wiilkii dhalinyarada ahaa ee Georgia ay ku amreen inuu iskuulka ka baxo loona ogolayn waxbarasho maadaama uu ka mid yahay dadka madow ee la adoonsado Georgia wuxuu ku adkaystay in uu doonayo waxbarasho loona ogolaado dabadeedna markii ay wada tashi sameeyeen maamulkii iyo macallimiintii iskuulka waxa go'aan ku gaareen in la ogolaado ardaynimo laakiinse waxa loo sheegay in ardayda caddaanka xaq ay leeyihiin barkood in uu leeyahay asagu waxa kale loo sheegay in markii iskuulku uu yimaado ay macallimiinta ku dhufanayaan midkiiba hal feer ilaad waana u ogolaaday sidaas ayuuna ilaa dugsigii sare ku dhameystay wiilkii Georgia ahaa markii dugsigii sare uu dhameystay waxa uu go'aan ku gaaray inuu jaamacadda tago waxa uuna doortay inuu barto cilmiga nafsiga gobolka California jaamacad ku taala ayuuna waxbarashadiisii ka sii waday ayadoo mar kale ay dhacday in ardaydii caddaanka ahaa ay sid iyo aflagaada ay uga kacaan laakiin dad uma dhikin oo waxa uu ku adkaystay in waxba uusan ka soo qaadin dadaalkiisii uu sii kordhiyo waxa dhacday in gabar caddaan ahayd oo aad u nacbaneed dadka madow oo na dhalay nin laga heeweystay ee madax ka ahaa ayna ku adkaysatay in wiilkan jaamacadda laga eriyo ayadoo adeegsanaysa awoodda aabaheed Georgia waxa uu ku sigtay in jaamacadda laga eriyo waxaase dhacday istijida kadib in la ogolaado in uu waxbarashadiisa sii wato ardaydii caddaanka ahaa gaar ahaan gabadhii iyadoo sida xoogga leh u nacbaneed dadkii madooweed ayaa waxay ku adkaysatay in wiilkan Georgia wejigiisii ka qariyo inta ay jaamacadda joogto oo madaxa uu soo gasho jawaan gobolka California oo ka mid ah meelaha dalka Mareykanka